wararka cusub Soomaalida iyo dhinacaasi Mareykanka wax ka cusub aan ku sheegaya CK ahay in muddo Mareykanka uu joogay talana waa ku jiray taladiisa oo soo dhamaatay iminka angal kale oo ay dadku fileen ay maaragtay Ingiriisi ka imaaday sida wararka ku hayna markuu horeysaba abtiyaashiis oo madibaan iyo beesho ka soo jeeda waxay isku haayeen in ninkan case fiican oo haysto ay muhiim tahay magaranaysaa in arinta uu ku dacwoodo oo cunsuriyeen iyo hanjabaad dil Europe loo geystay dhalinyaro badan oo Europe ku nool ay hawada u mariyeen ama si live ay internetka uga yiraahdeen bahaban ka aqli badan oo xandigal gacal buu habeerkaaga dhigay xandigal gacal buu habeerkaaga dhigay oo aan tuwaba joogay ayuu ka raacay aqli badan إيش؟ يا أغلى بدن. بطولة كي أباها يعني أغلى بدن. أنا أغلى بدن. أنا أغلى بدن. أنا أغلى بدن أباها برا. سببتو أباها أدير وحا واي. أباها وهو حبيبك هذا اللي حمد خمسة. سياسيس كليا لا دانيك. رئيس أنا بقول نحن. وأنا بقول نحن. رئيس لما بقى يبقى رئيس أبع قصة كي رئيسة والله وبالله وطلع رئيسة وحا قصة كي أبتياسة لكن هذا ورك عب جوان لو جاري كيس وبالعادة وحياتها إن دعوة لو فرو رج بدن أو أي كميدي هي رجدي سوشيال ميديا بالهان باش من ديوان هو يسكسو جيد كأفلقات دي ودل وجهان جوي قوسيابة كلو عارفة الذي أرميه السوشيال كا guurkiisa xataa in lagu kala geeyay hab qabiil ayuu ninkaasi maaragtay kiiskiisa ka dhigtay oo Europe ku noolaan karin marka caqabadahaas ay soo wajahuleeyay Europe dawadiisa waa bilaabatay rag badan email loo diray ragna waa loo ay sida aan maqlay dhinaca kale beeshooda laba nin oo kamid ah CK nin kale uu dacweeyay oo isna beesh hawiye waxa wada hadal uga socdaan maqlay magaalada Muqdisho in ninka magdalbiisa la siiyo arrinkaasna uu dib ka laabto asahaatee CK taas mustaqbal ay ku noqonaysaa sida aaminsanaa dib u ka laabto dacwadaas labadan mid baa mustaqbal waynaya mid baa ilaahay saasay noqonaysaa markii loo eego rule of law intaasayto dad badan soo dhaweeyay laakiin waxaan leeyahay hanjabaadda iyo cunsuriyadda dadka Soomaalida ay afkooda caadi ka tahay bal ka fiirso ku video iskaga duubayo hanjabayo ka fiirso waxaa 5 sano ama 10 sano ka hor sameysay baamaan su'aal laga weydiiyay rag badan oo wali Mareykanka tagin ama kuwa badan Afrika jooga baa markay wadamada qaar tagaan dacwad ku noqon karta in hanjabaad qof ku aayaan qabiil ahaan hayb ahaan diin ahaan iyo wax la mid ah CK Ingiriis oo banaanka daawade asxaabta qaaliga ah wararkii ugu dambeeyay ee maanta iska soo daba dhacaya waxa la sheegay CK Ayub Carlo oo maalimahan laga warlaa meel ay ku dambeeyaan oo hal mar iyo laba mar ma aqaan si lama filaan Ayub Carlo loogu arkay aalada TikTok oo la sheegay inay joogeen Mareykanka waxa ka soo baxay warar cusub oo naxdin leh wararka iska soo daba dhacaya waxa la sheegay CK inuu isku dhiibay wadanka Mareykanka dacwada oo isku dhiibay iyo asbaabaha oo u tagay Mareykanka inay tahay si ay magangeliyo u siiyaan dhalinyaro markaasi Europe joogan Europe isla joogan ee ku hanjabaadayeen Ayub Carlo oo dacwad badan lagu soo ooday oo maxkamad la saaray rabo warar badan iska soo daba dhacayo laakiin la cadeyn karin inuu warkaas run yahay iyo inuu been yahay laakiin waa wararkii ugu dambeeyay in uu CK isku dhiibay dacwad in yani Europe lagu cunsuriyay dhalinyaro ku cunsuriyeen dagaal ku siiyeen oo ka qabiil ahaan xataa guurkiisa hore oo yani u burburay qaab qabiil iyo cunsuriyeen ahaan oo laga qaatay xaaska xataa qaab qabiil loogu qaatay waxyaabo badan iska soo daba dhacayo allow saqir amuuraha waaye haddii oo warkaas run noqdo oo Ayub Carlo
maxkamad la saaro maadaama ay labadoodaba Mareykan isla joogaan CK Ayub Carlo oo Ayub Carlo codad badan ilaan cadeeman ah oo recording ah asigoo dhahayo aabaha iyo aniga ka aqli badan aabaha ayaa ka aqli badanahay aabaha Xamdi Kalgacal oo habaryar kaaga dhigay iyo waxyaabo badan oo hadda la soo koobi karin maalimihii ay ishaayeen CK Ayub Carlo wixii ka dhacayay waa la og yahay CK xataa wuxuu dacwad open ah ka qoray Shiino Culey oo naagti ka qaatay oo xaaskiisa ka dulmiyay qaab abtinimo ugu qaatay asigoo cunsuriyeenayo waxyaabo badan iska soo daba dhacay kolay wararka soo baxayo oo la sheegayo wixii ka run ah iyo wixii ka been ah waa sugi doonaa laakiin war la hubo oo hadda soo baxay oo la sheegay CK qaabka uu iskugu dhiibay Mareykanka marka insha Allah Allah sakhir amuuraha waaye hadii ay dhacdo taasi oo Ayub Carlo يعني maxkamad la saaro oo dacwooyin laga qoro oo يعني waxyaabaha codadkiisa ahaa iyo qaabkii uu hadlaayay maskiinka maxkamad lagu soo saaro way u dhamaatay Allah sakhir amuuraha waaye ilaahay sharka ha ka xijaabo ilaahay dhaxdooda maslaxad ilaahay dhigo adigoo maskiin iska ay baasaboorka Yurubna iska tuur kii Mareykanna way xanuun waaye CK oo dacwad ku soo ooday Ayub Carlo oo يعني sidii la wada og yahay social media dagaal adag oo kulul ka dhaxeeyay oo qaab cunsuriyeysan iyo qaab يعني dhan walba ah dagaalkii waxa la sheegay oo ka soo baxaya waqooyiga America in uu CK ku dacwooday ama uu isku dhiibay oo dacwadiisa ka dhigtay in Yurub lagu cunsuriyay dhalinyaro badan social media ay isla isticmaalayeen ee cunsuriyeen oo la hanjabaaday oo qaab qabiil loo hanjabaaday tan iyo waalidkiisa tan iyo aabihiisa la aflagaadeeyay oo waxba loo yareysanin sidaas darteeda inuu CK u tagay America Mareykanka la sheegay warar badan iska soo daba dhacayaan oo yani qaarkoodana run iyo been wuxuu yahay la cadeyn karin laakiin waxa la sheegay CK inuu maxkamad ku saarayo dacwadiisana bilaabatay Ayub Carlo عادي وعاي erayada uu isticmaalayay aabaha iyo aniga ya aqli badan aabahaaga Xamdi Kalgacal oo habaryar kaaga dhigay aniga ka aqli badan aniga reer hebel ahay adiga reer hebel tahay balad uu waday Ayub Carlo fankiisa iyo baladiisa waa iskaaga daba yimid waxa la sheegay oo yani ilaa ay hadeertaan war la hubo waaye war la hubo ma ahan boqolkii waxa waaye 50 wararka soo baxayo laanahu CK waxa la dhahay wuxuu cadeemo maxkamad ah u haystaa Ayub Carlo dad badan waxay leeyihiin labadan dhalinyaro hadii ay maxkamad isaaraan qof mustaqbal fiican yeelanayo qof mustaqbalkiisa burburayo Ayub Carlo waxa la dhahay reerkiisa waxay dhaheen CK magdhow lagu siinayaa dacwadan kalaaba camal laakiin abtiyaashiisa iyo reerkiisa waxay dhaheen dacwadan laga malaabanayo camal dad badan qof walba oo xataa kuba oo na cunsuriyeeyo oo Afrika jooga kuba Yurub jooga iyo kuba beel ahaan qabiilkeena isku dhiibo ayagana waa ka hortagayna ay taagan yihiin waxyaabo badan soo baxayo kolay Ayub Carlo wuxuu faanay waxa la yiri faantay maanta ku haysataa waxa fashay amaanta ku haystaa la yiri Ilaahay ha u yasiro in aad qof bini aadan markaas ku dhacdaan u hanjabaado in yani waxa rabtid dhahdid in laga duubo recordingka haro waxyaabahaas dhan way fudud yihiin laakiin marka xaalka ilaa reerkan gaaro waxay noqonaysaa tii ugu darneed iyo tii ugu xumeed oo kulmay Ayub Carlo Yurub iska joogtay Jarmalkaaga iska joogtay iyo Belgiumkaaga iyo meesha joogtay kale iska joogtay CK maxaa ku daba dhiga ugu daba baxda walaalo Ilaahay ha ku yasiro kale Ilaahay amuuraha sakhiro